أرضي بانها وبحي ودنكانها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم dhamaantiin aad baad salaamantiin ardayda reer Soomaaliland iyo guud ahaan ardayda dugsiga waxaan maanta toos u bilaabi doonaa casharradeena chemistry-ga ee online system-ka loogu talagalay muddada fasaxa ay ku jiraan in ardayda guryahooda ku qaataan maanta waxaan si toos ah u bilaabi doonaa casharka ugu horeysa ee ardayda foonada dugsiyada Salaama Schools loogu talagalay iyo guud ahaan ardayda kale inta badan la faa'iideysan doonta caadiyan sidoo naqano foonka waa 5 chapter laakiin maanta waxaan ka bilaabi doonaa chapter 5 oo noqon doona insha Allah chapter-ka ugu dambeeya marka xagga dambe ku geeban doonaa ilaa inta fasax lagu jiro inaan hore soo socno insha Allah unit 5 ama chapter 5 kama inta bilaabi doonaa waxaan noqon doonaa wax la yiraahdo acid and bases insha Allah oo aan si guud ugu eegi doonaa by the end of this chapters marka chapter-kan dhamaado ardayda waxa laga rabaa koow inay garanayaan what is an acid acid maxay tahay laba what are the properties of acid astaamaha guud ahaan acid lagu garan karaa maxay iyo saddex where acids are found acidada caanka oo aynu halka ku soo koobi doono halkee baa laga helaa normally iyagana inta badan si guud baynu eegi doonaa waxa kale inta badan ardayga laga rabaa foonka markuu chapter-kan dhamaado inaad garan karto bases-ku maxay laba inaad kala garan karto strong bases-ka iyo weak bases-ka maxay ku kala duwan yihiin saddex inaynu garan karno marka wax la yiraahdo properties and reactions of bases astaamaha ay leeyihiin iyo guud ahaan falgalada ay bases-ku sameeyaan insha Allah content-ga marka guud ahaan aynu ka fargarayn doonaa objectives-kaas inoo noqon doona insha Allah chapter-keenan maanta waxaan ku bilaabi doonaa su'aal sida caadiyan halka inooga muuqata chapter-keenan laba eray ka kooban yahay waa acid and base marka maanta waxaan si guud u eegi doonaa what is an acid acid maxay tahay acid markanu ka hadlayno caadiyan saddex xabba loo qeexaa laakiin inagu maadaama for one aynu scope-ka for one ku koobnaan doonaa insha Allah inta badan marwaxa qeexay waxa la isticmaalaa wax la yiraahdo pronounced lower theory pronounced lower theory acid waxa ku qeexaa waa walax kasta oo marka biyaha lagu milo soo saarta hydrogen ion ayaa la yiraahdaa acid tusaale ahaan imika halka hadaan dhigo hydrochloric acid oo dissociation ku sameeyay biyo ku milo waxay kala jabaysaa hydrogen ion iyo chloride ion marka acid marka laga hadlayo waxa la yiraahdaa waa any substance that produces hydrogen ion when dissolved in water waa walax kasta oo marka biyo lagu milo soo saarta waxa la yiraahdaa hydrogen ion waxay inta badan acidityga waxa sababa hydrogen ion-ka ku jira compound the more hydrogen ion there is in a solution marka soo hydrogen ion-ka ku jira compound-ku bato waa the more acidic acidityga inta badan way badataa the less hydrogen ion there is in a solution marka soo hydrogen ion-ka ku jira oo yaraadana the less acidic acidityga inta badan exactly so good ayuu yaraataa marka number 1 waxaan u baahanahay inaan isla fahno acid markaan ku qeexano waxaan isticmaali doonaa marka wax la yiraahdo pronounced lower theory marka pronounced lower theory wuxuu acid ku qeexaa acid sideeda waxa la yiraahdo waa proton donor waxaan uga jeednaa yani acid marka soo biyo lagu milo waxa soo saarta waxa la yiraahdo hydrogen ion definition-ka ugu fiican acid laakiin waxa bixiyo waxa la yiraahdo ninka la yiraahdo Arrhenius oo isaga waxa la yiraahdo Arrhenius definition Arrhenius acid wuxuu ku qeexaa wuxuu leeyahay acid is a substance acid waa walax kasta that produce hydrogen ion oo soo saarta hydrogen ion when dissolved in water marka biyo lagu milo marka simply arday waxaad ogaataa acid marka qeexayno acid waa walax kasta oo marka biyo lagu milo soo saarta hydrogen ion ay noorayna waa acid tusaale ahaan imika dan soo qaata hydrochloric acid oo aan biyo ku milo oo aan ka dhigay aqueous waxa kala jabaysaa hydrogen ion iyo chloride ion haddaan soo qaato tusaale ahaan nitric acid oo aan dissociation ku sameeyo oo aan biyo ku milo waxa kala jabaysaa hydrogen ion iyo nitrate ion yani in labadan shay acid maxaad ku garanaysaa markasta biyo lagu milo they produce hydrogen ion waxa soo saaran marka wax la yiraahdo hydrogen ion caadiyan waxaan naqaan markaan hydrogen ion ka hadlayno waxaan oran karnaa waa proton maxay leedahay hydrogen waxa leedahay hal electron iyo hal proton haddii electronka kaliya ay leedahay ay lumiso almost waxa noo soo haray wax la yiraahdo hydrogen ion oo kaliya marka almost waxa weyn oran karnaa hydrogen ion markaan ka hadlayno waa proton donor acid waa walax kasta oo protonada ku deeqda marka si guud inta badan aynu eegno marka maanta waxaan casharkeena koobaad ku bilaabi doonaa su'aal waxa leena what is an acid acid maxay tahay hadaba waxa leena an acid is a substance acid waa walax kasta that produce hydrogen ion oo soo saarta hydrogen ion when dissolved in water marka biyo lagu milo
or amaba haddaynu pronounce lower tier isticmaalo acid waxaan ku qeexi karnaa acid is a proton donor acid waa walax kasta oo proton ku deeqda proton markaynu ka hadlayno waxaan uga jeednaa arday hydrogen ion ay soo saartaa maxaa leeyahay hydrogen waxaa leedahay hal electron iyo hal proton electronka kaliya ay leedahay haddii la miso almost waxay noo soo hadhay proton kaliya ayaa inoogu soo hadhay meesha waxaan u baahanahay inaynu isla fahno haddaba arday su'aasha labaad what causes acidity maxaa sababa acidnimada yani shaygan inuu acid noqdo iyo inaanu acid noqon maxay ku kala duwan acidity waxa sababa hydrogen ionka ku jira compound yani markaan acid ka hadlana simple wax kale ma aha waa isku dhis kasta oo ay ku jirto hydrogen ion kaas markaa responsible ka acidity shaygaas uu leeyahay markasta hydrogen ionka uu ku bato acidity way badanaysaa markasta hydrogen ionka uu ku yaraadana acidity way yaraanaysaa sida normal keenta badan aynu arkano waxaan leeyahay markaa hydrogen ion in the solution hadaba hydrogen ionka acid ku jira ayaa is responsible the acidity ayaa mas'uul ka acidity-ga ay leedahay compound-kaas ama acidnimada walaxdaas inta badan ay leedahay marka waxaan rajaynayaa laba su'aalood oo kaliya inay ka jawaabaan kow acid maxay tahay acid waxaan niri waa walax kasta ama waa isku dhis kasta oo markii biyo lagu milo soo saaro wax la yiraahdo hydrogen ion ama waxaan oran karnaa acid waa proton donor waa walax kasta oo ku deeqda proton donor marka waxaan uga jeednaa almost acid mar walba waxay soo deeysaa wax la yiraahdo hydrogen ion su'aasha labaad ee ku jawaabna waxa weeye what causes acidity maxaa sababa acidnimada in shaygan inuu acid noqdo maxaa sababi kara acidity waxa sababa hydrogen ionka compound-ka ku jira kolba inta uu leeyahay the more hydrogen ion there is in a solution markasta hydrogen ionka uu ku bato compound-ka waa the more acidity way badanaysaa the less hydrogen ion there is in a solution markasta hydrogen ionka uu ku yaraadana acidity way yaraanaysaa sida normal ka caadiga inta badan ay noqon si kale marka dan idinku dhiga arday hadii jeer acidity waxa lagu gartaa oo lagu cabiro wax la yiraahdo pH scale sida caadiga inta badan ay noqono wuxuu ka bilaabmaa 0 ilaa 14 almost waxa u dhaxeeya 7 shay kasta oo pH-kiisu 7 ka yaray waa acid shay kasta oo pH-kiisu 7 ka badayna almost waa base ama waa alkaline base-ka 7 kana inta badan waxa la yiraahdo waa neutral waxaan uga jeednaa they are neither acidic nor basic shaygaas acidna maaha base-na maaha imika maxaad soo fiicnaydina biyaha ka mid ah imika pure water haddaan soo qaato biyuhu waa neutral macnaheedu waxa weeye they are neither acidic nor basic acidna maaha base-na maaha waxaa ka mid ah milixda any salt waan arki doonaa oo imika dad soo qaato tusaalahaan sodium chloride waxaan la yiraahdaa common saltiga ama caadiga la isticmaalo dhammaantood inta badan waa neutral macnaheedu waxa weeye acidna maaha base-na maaha waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo glucose dhammaantood waa neutral waxaan uga jeednaa markaa they are neither acidic nor basic macnaheedu waxa weeye haddii compound-dooda la milo lama soo saarayo waxa la yiraahdo hydrogen ion maxaa yeelay markaa acidity-ga mar walba waxa mas'uul ka ah hydrogen ion-ka ku jira